شديدة وعنيه قاب كذا لو دقاي اتما ايدن اركيو سيدا في أرحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي معنا وناكسن مركل أي فيديو أسب جانلك عاد نقول السعتان وحنا فاميلي يعني جو مسين سر وهذا معنا وناكسن هبي وناكسن صباح وناكسن ظهر وناكسن عصر وناكسن كل شيء وناكسن أصحابتي كتب سود وهذا أصحابتي هرجك سوكل سود وهذا دمانتي مسود وهذا دمانتي نودي مدجال هاي إن شاء الله وحنا وضعين قصة كور فضل جنك سبسكرايب نوصل لايك شير كومنت صاحب لو ذاك هذا ما سنتهي سبسكرايب هدوكو ساري لايك تلا دعنوغو سي إن شاء الله دمانتين واد ماسدين دمانتين واد wada jeclahay markasta iyo meel kastaba in uu ducay qof kasta oo muslim hospitaalada lagu jiro inuu Ilaahay caafimaad taam noo siiyo soo dhawaada insha Allah maanta waxaan aadaynaa in Australia hello Australia soo dhaweeya waxaan rabnaa insha Allah qisiyar oo ka dhacday dalka Australia waliba 2 isbuuc ka hor dhacday insha Allah inaan idin la share gareeyo haduu Ilaahay yiraahdo marka insha Allah noo bilaaba qisada gabadha waxa lagu magacaabo Amelia oo 35 jir ah iyo ninkeeda lagu magacaabo Frankia oo asna 41 jir ah labadoodu way isguursadeen waxay isqabeen ilaa iyo muddo badan ayagoo jaceelkoodana uu ka soo bilaabay goob iskala shaqeynayeen labadoodu waxay ku soo koreen nolol adag iyo waliba waxay ku soo bilaabeen noloshoodii meesha lagu haayo ciyaalka oo bila aabaha iyo bila hooyada ah isla markiiba markay isguursadeen muddo isqabeen waxa dhacday in isla markiiba uusan Ilaahay ku arsaaqin wax awlaad ah dhaqaatiir badan ay tageen because shaqooyin fiican ay heleen dhaqaatiir fara badan uu geeyay soo ogaada xaaladeeda asiga dhakhtar tagay laakiin waxa la yiri iska suga oon way dhalaysaa laakiin waqti hebel lama dhigi karo soo markay ay iska imaanayeen dawooyin badan ay qaadanaysay sheegtay waxa dhacday in ayada ay noqotay gabadhii macallin oo dadka baray ciyaarta la yiraahdo yoogada badankiin waa taqaaniin amaleena oo jimicsi camal ah muddo markay dadka bareysay waxa dhacday in gurigii ay ka mashquushay because qofka markuu shaqo bilaabo gurigiisa oo haddana shaqada uu ka shaqeynayo shaqo banaanka ah guriga si fiican uma keer gareynayo waxay maqashay marka ilaa ay dhowr bilood kadib waxay maqashay ninkeedii inuu leeyahay gabar kale oo saaxiib ah oo waliba la joogo oo markii ayada maqan tahay uu la joogo oo waqti agteed ku qaato oo ay aad isugu faraxsan yihiin isla markiiba asiga weydiisay wuxuu ku yiri waxaas ma jiraan gabadhaas meel un baan ka wada shaqeynaa laakiin wax xiriir oo na dhaxmar ma jirto soo marka caadi iska dhig badanaa in dadku waxa jira in dadka dhax shaqeeyo oo rufiyaamin ah Soomaali rufiyaan waayiraas oo dadka dhan maanta dhan yaani dadku warka sanitarisan oo yiri kan yaani business aanan rufiyaannimo bahan boosan u furneen soo marka gabadhii markasta waxa loo geynayay meeshu tagay meeshu sasiilay kanu yeelay maalintii dambe way soo baxday wax shaqaale iska dhigtay asigiyo gaaday way daba kacday xaaladda guriga inuu galay gurigii xoog kadib garaacday naantii ka furtay asigana xoog markay guriga gashay waxay aragtay soo sariir jiifa gabadhiina ay ka furtay waliba gabadha markay ka furaysay kitchen ka soo baxday oo quraacay diyaarinaysay isla markiiba meesha isku qabsadeen way soo baxday gurigeeda timid dumarka awoodooda ugu weyn waa idin sheeg waxa way ooyinta way iska ooysay isla markiiba go'aan ay qaadato ayna iska furtay laakiin asiga muusan rabin inuu furo oo wuxuu rabay maskaxda degsasho yaani gabadhaas kale in ilmo u dhasho rabay tan uu ku maskaxda degsado soo marka aan idin sheego wiilka waxa haystay yaani markii dambe oo meeshii oo dadka oo waalidka aan lahayn ka soo baxay wuxuu la noolaa reer ka soo jeedeen asalkooda ay ka soo jeedeen Kuwait ula noolaa oo la siiyo oonan ayagan aan ilmo lahayn ula noolaa soo marka saas daraadeed meesha wuxuu ka bartay aabii reerkaas lahaay inuu lahaay asigoo guri leh in uu aadi jiray gabdho kale oo saaxiib ah soo marka asiga wuxuu yiri dhaqankaas aniga meesha aan ka keenay waxay tahay in aabii soo barbaariyay
asaas ahay marka aniga just waxay leeyahay wax normal ah oo gurigan inaan soo nasasho doonto gurigaasna aan maalintii ku nasto kana habeenkan ku nasto wax easy ay lahaayeen markii warqadihii u gudbisay warqadihii diyaarisay ee tiri warqadahaas waa furinkeyga waa saxiixaysaa baa waxaa soo baxday si emergency waxaa kusoo baxday in la soo wacay uu cararay markuu cararay maxay tad gaarigeeda ka daba qaadato hospitaal uu tagay hospitaalka ka daba tagtay waxay maqashay in loogu hambalyeynaayo in gabadhii oo la dhuuminayo inay uur u leedahay loogu hambalyeynaayo oo weliba uu noqonayo aabo marka waa dareemi kartaa qofka markuusan asiga uusan awlaad lahayn haddana ninka uu naag guursado naagta ilmo u dhasho waxaa waaye qalbi jab weyna ku dhacayo isla markiiba go-aan oo waxay qaadato oo aad xun weliba aanan laga hadli karin waxa uu yahay weydisha ninka way qabatay asigoo hurda middo dhowr videood bay gelisay meeshuu ku dhintay wayna baxday booliskii isku dhiibtay waxay tiri ninkeygi baan dilay saas baan u dilay so laakiin maysan fiicnay inay disho because sharciyada reer galbeedka ma dhici karta in nin laba naagood uu isku qabo macquulna ma ahan soo marka inay disho maba ahayd inay booliska u sheegto unbay ahayd uu tiraahday aniga xaaskiisaan ahay gabdho kalena wuxuu la sameeyaa google dhaaf soo marka saas unbaa lagu xir lahaa laakiin inay disho maysan ahayn isla markiiba boolis guriga yimaadeen waa la baarbaaritaana la sameeyey midii wix dhanba gacmaheedii laga helay ninkuu dhintay saasa guriga looga bixiyay gabadhi kale loo tagay waxaa la yiri sababta maxay tad nin naag leh oo reer leh oo guursatay maxay tahay waxay tiri wuxuu ugu yiri haddii aad uur ii qaadid oo yacni uur aa qaadid naagtaas waan furayaa soo marka inuu furo oo warqadee ayada furay tir warqadiyaa saxiix rabtay marka keliya wuxuu sugaa oo warqadaha umada daalinaya waxay tahay in anta aniga uurkeyga uu reality noqonayo yacni uu soo xaqiiqobayo hadda maanta markay dilaysan wuxuu diyaar u ahaa inuu saxiixo warqadii furinka laakiin dilkiisa soo hormaray waxaan u baahanahay naagtan maadaama ninkeyga dishay oo ilmaheygii aabiis ay ka dishay waxaa u baahanahay in la ii xukumo naagtiyaaba xukun dalbataba because naagti uu qabay naagaan eenaaba wixii tiri hala ii xukumo naagti isla markiiba waxaa la fiiriyey gabadhii maskaxiyan ahaana loo baaray in waxaa la ogaaday in maskaxdeedii uu wax ay si noqdeen because ay niyad jabtay in maskaxda isdhexyaacu ku dhacay ma u maleynayo maanta gabar horta intaan awlaada lahayn oo islaan ilaah awlaad baari ha siiyo waana xanuun markii markasta oo qofka asla nooleedeen oo asiga awlaad aa ka sugayso inuu ilaa awlaadeeda kala siin inta kaa dhuunta xitaa qofka biliis waa la respect gareeyaa oo inta gadaasheeda ka baxo oo naag kala guursado naagta kale awlaad u dhashurto waa qalbi jab taas been ma ahan gabadhii dhakhtarka la geeyey waxaaba la cadeeyay inay waalan tahay saas daraadeed markii waxaa lagu xareeyay dhakhtarka maskaxda oo dhimirka saasayna markii gabadhii xukunka ay kaga badbaadi because lama xukumin laakiin way waalan tahay waxaa la geeyay hospitaal oo dhimirka ah walaahi qisada horta meeshii ku dhan tahay laakiin dhibka jir wuxuu yahay hadda qisadan naftirkeeda badanaa waxay ka dhex dhacdaa shacabka yacni soomaali meelay joogtaba ha noqoto in ninkaasoo xaasla uu xaaskiisiisana awlaad u dhalin uu xaas kale qudbisiraysto isla markiina xaaska kale ee u dhashay wax markii u dhashana ninkii uu isbedelo uu yiraahdo sorry ninkan uu isbedelo uu si kale la soo baxo laakiin ani ahaantayda waxa ila fiican oo ila qurxan haddii maanta ay dhacdo oo aad damacid gabar kale oo xaas aa lahayd xaaskaagan isan awlaad kuu dhalin inaa marka hore u sheegtid haddii ku tiraahdo fur markaas allahna gaarsiiyo laakiin marka hore bal respect garee because qofkan awlaad ma jiro maanta qof awlaad diidayo qof kasta awlaad wuu rabaa soo marka please hala ixtiraamo oo hala respect gareeyo gabdhaha qalbiyadooda because maanta annaga nimanka waan ka qalbi jilcanaha marka xaqiiqada laga fiiriyo waxyaabo far badan oo nimanka normal la ah waxaa jira in dumarka qalbigooda dhibaayo oo qalbiga damaqinayo soo marka qisada intaanay ku dhammaantahay insha allah dhammaantii waa mahadsantihiin channel subscribe noo saar like share comment saaxiibada la wadaag aad mahadsan tahay subscribe haddii kuu saaran yahay
like naga dhis dhammaantiin waa idin wada jeclahay dhammaantiin waa mahadsantihiin insha Allah please hala share gareeyo hala subscribe gareeyo subscribe-kiina aad u yaraatay videoga maxaan rabaa inaan idinka dareemo family xabaab insha Allah wax yar oo dhiman haduu Ilaahay raado waxaas yar oo dhiman hanala gaarsiiyo ramadaanka ka hor insha Allah hanala gaarsiiyo ramadaanka maalmo yar ka dhiman haduu Alla yiraahdo marka ramadaanka hor hanala gaarsiiyo dhammaantiin waa mahadsantihiin dhammaantiin waa idin wada jeclahay one love